sababo kala gedisan ayay sheegayaan laakiin sababa shacabka Soomaaliya inta la soo hor istaagay la yiri doorashada aqalka sare hoose waa dib ay u dhacday sababta 1 2 3 ay leeyihiin maamul goboleedyada ma jiraan ra'iisul wasaaruhu mid uu la wadaagay ma jirto sidaas daraadeed maadaama waxaan la wadaagay tahay wax laga baaqsan karay amba aan la saameyn karin si fiican loo saameyn karin ayay noola muuqataa taas ayaa keentay markii inaan yiraahdo waxaan u baahanahay in dadka Soomaaliya mudooyinka ama loo qabanayo doorashooyinku aadan waa in looga soo baxo hadii wax culays ay jiraan waa inay noqdaan wax dadka Soomaaliya loo sharxi karo waa wax dowladda murashaxiinta loo sharxi karo saamilayda siyaasadeed oo idil sharx laga siin karo laakiin taaba aan la taaban in wax dib ugu dhaca lama aqbali karo adinka ka mucaarad ahaan marka laga soo tago dhaliilaha aad jeedinaysaan ee ah in doorashadii ay dib u dhacday oo aan lala socodsiin dadkii iyo dabcan saamilayda siyaasadeed adinka ma idin muuqdaan caqabado aad isleedihiin waa ay keeni karaan hadda caqabadaha waa anagu ilaa ay ka sheegaan maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaruhu caqabadaha hadda anagu ma sheegi karno marka karno kaliya waxaan kala shaqayn lahayn hadii ay yiraahdaan tirada anagu badan hadii yiraahdaan labadii meelood laga dhigay baa aasaasan waa hadii ay yiraahdaan amniga baa culayskaas ka taagan yahay oo meel kale culays laga saaran yahay waxaas oo idil waxaan ka shaqayn lahayn anaga bulshada Soomaaliya qeybada kala gedisan in caqabada ku timaado aan la fuudayno hadii waxyaabo international soo xiran ay jireen laakiin cidii shaqada loo idmaday ee qabanaysa anagu shaqada saadsan tahay ma shaqada dadka ay khusaysan nahay laakiin anagu shaqada ma qabanayno shaqada dadka qabanayaan caqabadaha hor yimid oo ay xalilaayihiin inay sheegaan si wixii ka dhiman oo cudud ah abaabul ah qancin ah anagu la qayb qaadan laakiin daalama iyagu aysan intay soo istaagaan aysan dhahaynin maaliblaay doorashada dib u dhaca sababta 1 2 3 aysan dhihin anagu waxa nala siman kaliya waxay noqotay inaan yiraahdo wareedhahay doorashooyinka waqtiga loogu talagalay ku qabta sababa anaga aan taaban karno hadda noo muuqdana ma jiraan iyagaana mas'uuliyadda iskale iyaga rabaa inay ka soo baxaan waxyaabaha dadka qaar ay idinku dhaliilayaan waxaa ka mid ah in khilaafka madaxda sare u dhaxeeya sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aad adinku u durbaantumayseen isaguna uu qayb ka noqon karo dib u dhaca doorashooyinka marka adinka laftiinu si dadban ayaad qayb uga tihiin caqabadaha ma la dhihi karaa horta anagu gurbaan ma haysano waxaan haysanaa dad Soomaaliyeed oo waxaan hay siyaasiyiin ah wax qalada iyo wax qaranka qalad ku ah iyo wax qaranka sax ah haday isku yimaadeen waxaan la safanaynaa wax qaranka saxda ah wax qaladkana waa kor imaanaynaa waa laga yaabaa ragga filada joogo ama madaxweynihii mudahaleedkiisa dhamaaday inuu arko mowqif qaldan haduu qaado farta ku fiiqnaa isaga taageerayaashiisa inaan roob la kala safanay laakiin saakito qofka aan boorinayno aan leenahay shaqadii waa laga gaabiyay ra'iisul wasaare roob la waaye waa maamul goboleedyadii shantoodii waaye bayaankeena meelna kagama xusna bila Soomaaliya marka anagu sax iyo qaladan ka naqaana qofkii rabo inaan taageero aan la safano hadii la iskhilaafo waa inuu saxda istaago qofkii rabo inaan ka safano ama waxaan idhaahdana meesha qaladka uu istaagaya bila Soomaaliya meelaha qaladka ay istaagisay anaguna meelaha qaladka waa dhahayna meelahaas waa qalad saakito waxaan la qaldan maamulada iyo ra'iisul wasaaraha iyo doorashada ay u dhahday taas aan marta ku fiiqnay laakiin daahir inkastoo dib u dhacyo ay jiraan haddana wixii waa ay socdaan ilaa iyo hadda ma istaagin howlihii doorashada waa ay socdaan marka adinka laftiinu soo ma haboona inaad sugtaan maadaama caqabadana ay jiraan wixiina ay socdaan intii aad culays saari lahaydeen walaalow Soomaaliya waxa ogaato guud ahaan meel kasta joogto maalinka madaxweyne la dhaariyo maalinka madaxweynaha kaamada la dhaarinayo ama asagiyo dib loo doortaa noqotaa mid kale ha noqotay waa la yaqaanaa way tirsan tahay sanadaha ay u tirsan tahay bilaha ay u tirsan tahay toddobaadyaha ay u tirsan tahay maalmaha ay u tirsan tahay saacadaha ay u tirsan tahay marka tii markii la soo dhaafay oo 6 bilood dheeraad hadda ay ku sii socoto bishii 10aad ku jira bishii labaad ay ahayd oo 6 bil iyo waliba 8 bilood sii socota laga soo gudbay hadii aan idhaahdayaan dah kale yaan la sii garin hadda barashar loo baahan yahay oo aan wax ku meel marinayno oo dalkii sidii ay ahayd inay ahaato aan ugu riixayno waayo maahane wax ku curiyaamayaan ama wax ku dhibaataynayna ama wax kala daadinayna ma ahan doorasho ku heshiinaan isdooran waayahay dad mandate oo shaqeyn kara yimaadino walaalo hadda waa wax qurxin waa wax sixid waa wax badbaadin ma ahan wax arqalatayn iyo wax maaragtay waxaan ku raadaa kala daarin midna ma ahan qaran la qurxinayo ayaan jidkiisa ku taagana cabsida aad qabtaan ee hadda qaybaha dhiman doorashooyinka in dib u dhac uu ku yimaado intay leeg tahay annaga waxaan isleenahay haddii shaqadaasi daacad ah oo maaragtay dadaal ku dheehan yahay loo galo in aad loo soo koobi karo maalmo ma qaban karno hadde nimanka shaqada qabanaya ayaa laga rabaa iyaga laga rabaa waxyaabaha caqabadaha ku haddii tirada ay caqabad ku tahay inay ka hadlaan haddii labada gobol ay caqabad ku tahay inay ka hadlaan haddii dhaqaalo caqabad ku yahay inay ka hadlaan